maanta waxaan kula wadaagayaa 5 buug aan aaminsanahay inay noloshaada bedeli karaan ama saameyn ay ku yeelan karaan. walaal soo dhawo magacayga waxaa la yiraahdaa Daahir, halka waxaan kaga hadlaynaa real estate investment, fix and flip, Airbnb arbitrage, ama wax loo yaqaan wholesaling ama side hustle oo online ka lacag uga sameeyaan kaga hadlaynaa halkan. Soo dhawo hadda nagu cusub tahay insha Allah na soo follow garee wixii video ka badan 2 daqiiqo YouTube-kayga aan soo dhigaa waan ku bilaabayaa. shanta buug waxaan ku bilaabay buugga koowaad waxa loo yaqaan Atomic Habit oo ah by James Clear uu qoray. buugan wuxuu ku barayaa dabeecadaada saa u bedeleed qof bini'aadanka inuu isbedelaa duu rabo adigoo dhan inta hal maalin imaado isma bedeli kartid laakiin dabeecadaada iyo dadka saa loo dhaqanto isa wax u cunto hadaa bedesho noloshaada way isbedelaysaa badanaa buugani wuxuu dadka kula talinayaa inaad dabeecadaada in yar u bedesho wax loo yaqaan small changes inaad samayso intaad dhihilaad wax weyn baa bedelayaa wixii yar ka bilaaw laakiin wixii consistent noqo maalin walba samee taas waxay ku ogolaanaysaa waxa tiny habitkaas aad samaysay ay wax weyn ku geerisanaysaa wuxuu isticmaalaya wax loo yaqaano compound habits oo ah wixii way kordhayaan hadda maanta like aad dhigto $5 aad save garaysa maanta oo ah ka soo qaada maantadan weekly imse tegaysaa lacag badan noqonaysaa sanadkii imse tegaysaa lacag badan noqonaysaa with the same concept hadda maanta aad rabto inaad weight lose garayso kala ka soo qaado badan mostly analogy-gaas u easysan inta dhihi lahayd waxaan rabaa inaan lose garayo 20 pound waxaa bilaawaysaa actionkiyaa bilaawaysaa gymkina aado like 1 hour kaliya wigi aado at least 3 times aado inta dhiilad waxaan aaday 7 days hadii kale waad isgubaysaa yar u bilaaw wixii kadib ku guuleysanaysaa buugga labaad waxa loo yaqaanaa Think and Grow Rich waxaa qoray Napoleon Hill qoray buuggan wuxuu ka hadlayaa qofka bini'aadanka wax walba uu sameynayo inuu ka bilowdaan damacaasoo damaca ku gubayo oo rabto qofka inuu meel hiigsanayo waxaa kaloo ka hadlayaa mindset-kaada qofka bini'aadanka wuxuu iska aaminsan tahay waxa adiga iska aaminsan tahay aad iyo muhiim u tahay sababtay mararka qaar waxa laga yaabaa qofka wax inuu kaga aaminsan yahay laakiin waxa taa ka muhiimsan waxa adiga iska aaminsan tahay hadda adiga is dulayso ودولي بنقونيسا لكن قف بلاد انتو كدولين كهر صوت مسكحة هذا كدمتو وكعريانتو ماشي اللي كعريان موقعهم وبلادك وعقلوا كهلا هدارة ويناس تجلستا جول كاسو واللي هاي النقطة انت ضيه لدو حن هيك سنة إنا نسميه لبعضهم ومصدقون إنا بحضر كلا وحنسميه 1 مليون هذا سمين وسو ملف عم بتجي ساعة وعقلوا كهلا إنا ضدك هديك حرفة بديهين أم وحكوا دامان وماست ماين وحلو يقانو كهلا ضد أذيو كلا أم واحد سميه سجعل إن الرادسو ضد كاسو كون في عدونه هذا ربط قف وسميني waxa adiga rabto inaad sameeyso ama hanka rabto inaad gaarto qofka waxa isku daydaa inaad you have to add value wax free ma jiraan caalamka adduunka saa la socoto so there's another book akhriya jira oo loo yaqaan for a laws or powers oo ka hadlaya qof bini'aadanka interestigiisa inaad hormariso saa adiga waxa rabto uga hesho so buugaasi waa ka helay aniga adigana oo ka heli doonta saamsanaad daawada buuga ka hadlay doon waxa loo yaqaan Rich Dad Poor Dad dad badan baa yaqaan buugan sa garanayo buugan waxaan akhriyay 2017 kan akhriyay waxa ka baranaysa waxa loo yaqaan liability and asset oo liability oo ah lacagta ka bixayso iyo an asset lacagta ku soo galaysa ah so dadka qaar waxa ku wareersan yihiin liability dadka qaar waxa ku wareeraan liability and asset dadka qaar waxa istaa guri gaari haduu leeyahay inuu yahay an asset laakiin gaarigaada an asset maaha lacagta insurance bixisa waxa bixisa kale waxa bixisa gaasa ka baxa lacag on top of that monthly payment ka bixisa waa liability way hada guri leedo kale it's an asset waxa kaloo ka hadlayaa buugga wuxuu ka hadlayaa kale shaqooyinka 9 to 5 laga shaqeey ayuu challenge gariyay inay nolol lahayn qof bilaadan adigoo kale u shaqeyso waxa kaloo dhahay dadka richka lacagtooda ayaa u shaqeysa dadka faqriga iyo middle class-kana dad kale ayaa u shaqeeya so waa ka soconaya buuggaasi waa buug aad u fiican waxaan filayaa inuu noloshaada bedeli karo daaqriso daawa buugga akhriyo waxa loo yaqaanaa Man Search for Meaning by Victor buuggan wuxuu ka hadlayaa qof bini'aadanka hadduu macnaha adduunka uu raadinayo inaad ogaato nolosha sida uu shaqeyso qof bini'aadanka waxaa kaloo ka hadlayaa qof bini'aadanka uu rafaadi doona rafaadku ku soo maraya nolosha hadda waliba qof dhalinyaro tahay ama Soomaali ama gabar tahay rafaadka nolosha ayaa kamid tahay laakiin su'aasha waxa weeyaan sidee uga jawaabaysaa ma qof kale inaad xaasidaad jawaabtaada noqonaysaa ama envy ina noqoto qof kale isku daydo ama ina adiga nafsadaada aad dhisto ina kor u qaad isku daydo ama qof kale aad raadiso waxaad aad raadinayso natiijada aad raadinayso si uu kaaga caawiyo arintaas qofkaas oo adigana aad caawinayso si adiga isku caawiso wuxuu ka hadlayaa qofka hadduu macnihii uu fahmin nolosha macnaheeda uu fahmi waayo inuu mar walba dareemayo dadka like that's why I arkaysa dadka depression ay qabaan anxiety all these things sababtoo macnihii adduunka ma fahansano especially hadduu qofka religion ama diin uu aaminsaneen dhibkeeda ay leedahay dadka qaar waxaas ma aaminsano that's why arkaysaan waxaas oo dhan way haystaan dhibkaas way haystaan
The last book aan ka hadli doono waxaa loo yaqaanaa The Sorrow of Not Giving a Fuck. Bookgan waxaa qoray by Mark Manson qoray. So waa book aad u fiican. Bookgan wuxuu ka hadlayaa dadka bini'aadanka inay ku mashquulaan waxa muhiimka adiga ku ah. iyo aad ku mashquulin dadka bini'aadanka muxuu ka sheegi doonaa. badanaa dadka qaar noloshoodan waxay u burbursan tahay. heblow muxuu ka sheegi doonaa, cali muxuu ka sheegi doonaa, wuxuu ka sheegi doonaa. Aniga kula hadlaya dhibaatada way haysan jirtay. laakiin noloshaada waxay ku burburi doontaa qofka bini'aadanka literally maanta hadaa dhimato berita hadaa dhimato wallahi waxba cid ka warqabta ma laha. aduu baa soo haystaa, aduu maskaxdaada baa ka cabursan tahay mooye cid ka warqabta ma laha. qof bini'aadanka waxay doonaan sheegayaan. waxay doonaan ha sheegaan. maxay ku sheegayaan laakiin by the time aad guulaysato way ku imaanayaan ana qurballaba ka qaaday sababta buugan waxa ka baranaysaa inaad bilaadan aad u joojinin cid aad u joojismo laha waxa rabta inaad samayso samee hadaa rabto like doctor noqo hadaa rabto influencer video samayso kale hadaa rabto samee waxa doonto samee noloshan adigaas kale qof bilaadan ha u joojinin waxa doonto samee soo shada buug waa ka heli doonta sana misanahay insha Allah haddaan ugu cusub tahay in soo follow garee videogan saan filayo YouTube ay doona uu ka dheeraaday more than 2 minutes إن شاء الله نسوي في الفيديو فربنا نسوي لنا مستقبلك إن شاء الله وسلامية خير ما يرجعنا